Assalaamu calaykum. Tobanka magaalo ee ugu halista badan caalamka oo la shaaciyay. Warbixinta sanadlaha ah ee uu daabacay wargeyska Top Zen waxa uu kaga hadlay tobanka magaalo ee ugu khatarta badan dhanka ammaanka. Waxa uu sheegay magaalooyinkan in la isugu weeraro sidoo kalena la isku dilo waxaana dambiyada ay gaareen heerkii ugu sareysay. Dhacdooyinka ugu badan ee ka dhaca tobankan magaalo waxaa ka mid ah dilalka, weerarada, dhaca, afduubka, qaraxyada iyo rabshado kala duwan oo dadka shacabka ah waxyeelo ka soo gaarta. Magaalada tobanaad, magaalada Detroit oo ka tirsan gobolka Michigan ee dalka Mareykanka. Detroit waa magaalo ugu khatarta badan Mareykanka. Heerka falalka dambiyada waa 2135 waxaana la kulmaa 100,000 oo qof oo ka mid ah dadka deegaanka. Sababta ugu weyn ee rabshadaha ayaa ah hoos u dhac dhanka dhaqaalaha iyo shaqo la'aan ka jirta. Magaalada sagaalaad, Santo Domingo ee Jamhuuriyadda Dominican. Heerka dambiyada ayaa marna kor u kaca marna hoos u dhaca. Inta badan dalxiisayaasha ayaana ah dhibanayaasha ugu badan waana magaalo ugu khatarta badan Jamhuuriyadda Dominican. Magaalada sideedaad, magaalada Caracas ee dalka Venezuela. Dowladda Venezuela ayaa qiratay heerka dambiyada ka dhaca magaalada Caracas. Dadka dalxiisayaasha ee imaanaya magaalada ayaa lagu wargeliyaa inay feejignaadaan. Dibadbaxyo ayaa dhaca, kooxo hubeysan nabadooyinka ay ka fuliyaan weeraro ay ka mid yihiin afduubka, dhaca, boobka waana kuwa maalin kasta dhaca. Magaalada toddobaad, magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq. Heerka falalka ka dhanka ah ammaanka iyo dambiyada ayaa cirka isku shareertay tan iyo markii ciidamada Mareykanka laga howlgeliyay Ciraaq. Qaraxyadii, ismiidaamintii iyo kuwa loo adeegsado gawaarida ayaa si joogto ah uga dhaca Baghdad. Sidoo kale dadka ayaa la kala iibsadaa tan iyo markii la riday taliskii Saddam Hussein 2003. Number 6, magaalada Mogadisho ee caasimadda Soomaaliya. Mogadisho waxaa burburiyay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay. Shacabka qaar ee Mogadisho waxay ku nool yihiin gudaha dalka iyagoo barakacsan. Waxaa magaalada ka dhaca dilalka qorshaysan, qaraxyada, isirsaasenta iyo afduubka. Dowladda Soomaaliya waxay weli xakameyn leedahay heerka dambiyada ka dhanka ah ammaandarrada oo kor u kacaysa oo inta badan ay ka dambeeyaan kooxo hubeysan. Magaalada shanaad, Ciudad Juarez waxaa loo aqoonsaday magaalada ugu rabshada badan caalamka sanadii 2009. Welina waa sideeda, waxaa ka dhaca weeraro ay geystaan kooxo ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya. In dumarka lagu xadgudbana caan ayay ku sii tahay. Heerka dilalka ayaa ah in maalin lagu dilo 130 qof. Heerka dilalka ayaa ah mid caadi iska ah. Magaalada afaraad, magaalada Cape Town ee dalka South Africa. Magaaladan waxa ay ka mid tahay kuwa ugu qurxoon Koonfur Afrika, balse si isdaba joog ah ayaa dadka loogu dhacaa alaabahooda. Waa lagu dilaa waana lagu afduubtaa. Sababta ugu weyn ee rabshadahan waa kala duwanaanshaha dhanka dhaqaalaha. Sidoo kale magaalada Cape Town waa midda ugu khatarta badan Koonfur Afrika. Magaalada saddexaad, magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Waxaa Kinshasa caadi ka ah boobka iyo jabsiibka. Inta badanna waxaa la kulmaa carruurta aan guryaha lahayn. Waxaa dadka lagula taliyaa in daaqadaha aysan furin. Saas ay tahayna gaadiidka dadweynaha ee magaalada Kinshasa waa kuwo u nugul falal amni daro mar walbana la kulma. Magaalada labaad, magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. Sanad waliba waxa ay soo jiidataa malaayiin dalxiisayaal ah. Waxaa intaas sii dheer dambiyada ka dhaca oo sii kordhaya. Qiyaas la sameeyay waxaa lagu ogaaday in toddobaad walba 30 qof ay u dhintaan falal ammaan daro oo ka dhaca magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil. Magaalada koowaad, magaalada Muzaffarabad ee dalka Pakistan. Magaalada Muzaffarabad waxaa caadi ka ah rabshado ka dhaca waxaana ay noqdeen kuwo la mid ah nolosha caadiga ah. Dibadbaxyo, rabshado wata iyo howlgallo ciidamo booliisku sameeyaan oo ammaanka sii xumeeya ayaa ka dhaca. Waxaana magaalada Muzaffarabad ay dhacdaa xadka Pakistan. Heerka falalka lidiga ku ah ammaanka waxa ay gaareen meeshii ugu sareysay 2016 oo 100 qof lagu dilay. waxaad naga daawanayseen Rajada iyo Maanta. Haddaad ku cusubtahay channelka Rajada iyo Maanta, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe aad dhahdo gambarelkana aad rukumato si aad u noqoto saaxiibka dhow ee Rajada iyo Maanta oo aad u hesho waxyaabaha ka dhaca dunida iyo daafaheeda. Maanta waxaanu ku soo qaadanay 10 magaalo ee ugu khatarta badan caalamka. Intaanu ku kulmayno mar kale waxaan iga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Isma dhaafina amaana Allah.